waa markale iyo barnaamijkii aan uga faalloo jirnay magaalooyinka dalkan UK Soomaalida ku nool. Toddobaadkana waxaan kusoo qaadan doonaa magaalada Nottingham iyo Soomaalida ku nool magaalada tan. Magaalada Nottingham oo ah magaalo fac-weyn oo weliba caan ka ah dalkan Soomaalida ku nool sida uma badnaa sida magaalooyinka kale. Waxaad arkaysaa magaalooyin yaryar oo ay Soomaalidu ku badan tahay, hase yeeshee waxay Soomaalidu magaalada tan soo degmootay bilowgii qarnigan 20-aad. hase uga badnaadeen sanadkii 2004 ilaa haatan waxaad moodaa in Soomaalidu ay ku soo badanayso. waxaa ku yaala ama ka dhisan Somali Community Organization kale oo ku howlan ama ku magacaaban in ay Soomaalida magaalada wax u qabtaan. hase yeeshee waxaa laga yaabaa haddii aad faras magaalaha aad u socdaasho in hal ama laba qof mooyee aadan dad badan oo Soomaali ah aadan ku arkaynin Soomaalida magaalada Nottingham. taana waxaa sababaya intooda badan dadka reer Nottingham ee Soomaaliyeed waa dad shaqo iyo waalid ku howlan danahooda gaar ahaaneed. Soomaalida magaalada Nottingham waxay ku kala baahsan yihiin xaafadaha waaweyn ee magaalada Nottingham, hase yeeshee waxay ugu badan yihiin oo ay Soomaalidu degtaa xaafadaha Radford, Lenton, St Annes, Meadows iyo xaafado kale. Soomaalida ku nool magaalada Nottingham waxay u badan yihiin Soomaali ka soo hayaantay ama ka soo guurtay wadamada Yurub iyo waliba Soomaali sharci sugayaal ah oo ay soo dejisay waxda dejinta iyo guriyeenta dalka kan ee qaxootiga. waxaa dhawaan inagu soo fool leh maalintii ciida ciidul fitriga ee sanada 2009. maalintii ciida maalin farxadeed oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Nottingham ay wada sugayaan in ay ku qaataan farxad si wada jir ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba, iyagoo la wadaagaya farxadaasi walaalahooda kale ee dunida muslimka. haddaba sanadkiina dhaafay ee maalintii ciidul fitriga ahayd waxa ay Soomaalida ku nool magaalada Nottingham uu soo kala dhex galay waxoogaa kala fogaansho ah, taas oo dadka intiisa badani ay sababta arrinkaasi ay dusha ka saareen dad qaas ah in ay sababeen markii laba qayb loo kala xiiday oo wax laga xumaado ay ahayd hool dhan oo ay dad Soomaaliyeed ay diyaariyeen in ay Soomaalidu salaada ciida maalintaasi ay ku tukadaan. ay dadkii Soomaaliyeed qaasatan waxgaradkii magaaladu aysan soo xaadirin sababa jiray awgeed, inkastoo aysan wax dhib ay ku jirin in qayb loo ciido, in la wada ciidana oo meel qura lagu wada ciidana ay habboon tahay. haddana xiisada maalintaasi waxay u muuqatay mid xumaanteeda wadatay oo dadka intiisa badani aysan jeclaysan sida xiisadaasi loo oogay. haddaba su-aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay, ma meel qura ayaa lagu wada ciidi doonaa mise sidiiba haddana loo kala ciidi doonaa?